kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynaha Puntland oo kulan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ku yeeshay Garowe. kulankaasi oo natiijo la'aan ku dhamaaday. madaxweyne Donald Trump oo guuldarro la kulmay kadib markii maxkamadda sare ay diiday dhageysiga dacwad lagu laali lahaa guushii Joe Biden oo ka helay 4 gobol oo muhiim ah. magaalada Jigjiga iyo deegaanada Soomaalida Itoobiya oo qurba joog badan ay maalgashi ka wadaan iyagoo ka faa'iideysanaya isbedeladii ka dhacay Itoobiya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku sugan magaalada Garowe isagoo isku dayay in xal uu u helo khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya. Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu kulan albaabadu ay xiran yihiin la yeeshay madaxda Puntland, balse ila xog ogaala ayaa waxay sheegayaan in kulankaasi aanay wax natiijo ah ka soo bixin. wariyaha VOA magaalada Garowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan inoo soo diray. kulanka ayaa labada dhinac uga doodeen xal u helidda khilaafka ka taagan habka loo marayo doorashada dadban ay madaxda dowladda dhexe iyo maamulada ku heshiiyeen. dood dheer kadib waxaa soo baxay in labada dhinac ay isku mari waayeen wadahadalka. ila ku dhow kulanka ayaa VOA u sheegay in Roble uu u sheegay Deni in Puntland ay soo magacawdo xubnihii guddiga doorashada uga mid noqon lahaa, laakiin Deni ayaa ra'iisul wasaaraha u sheegay in Puntland aysan arrintaasi fulin karin ilaa iyo inta xal loo helayo arrinta guddiyada doorashada federaalka oo ay Puntland sheegtay inay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka ee NISA. sidoo kale Deni ayaa Roble u sheegay in xukuumaddu wax ka qabato khilaafka Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo u dhaxeeya oo gobolka Gado dib loogu celiyo gacanta maamulka Axmed Madoobe. sida ay sheegayaan ila ku dhow kulanka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la sheegay inuu u sheegay madaxweyne Deni in arrinta Jubbaland aanay ku xiran tabashadooda Puntland oo xukuumaddiisu ay la hadli doonto Jubbaland si loo xalliyo khilaafka iyo waxay dhinacooda tabanayaan. Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay in sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble uu u sheegay in magacaabista iyo xulista xildhibaanada Somaliland lagu xushmeeyo Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. si kastaba ha noqotee inkastoo labada dhinac ay wada hadallada isku mari waayeen, haddana waxaa la sheegayaa inay dhici karto in mar kale ay kulmaan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale caawa kulan la qaadan doona ururada bulshada rayidka ee Puntland. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa guuldarro kala kulmay isku daygiisa uu ku doonayo in lagu laalo doorashadii ka dhacday Mareykanka kadib markii maxkamadda sare ee Mareykanku ay shalay diiday dhageysiga dacwad ka dhana Joe Biden. gobolka Texas ayaa soo gudbiyay dacwad lagu doonayo in lagu laalo natiijada codbixintii gobolada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin oo Joe Biden ku guuleystay. dacwadda gobolka Texas ayaa waxaa taageerayay in ka badan 129 xubnood oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada iyo 19 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka kuwaasi oo rajo ka qabeen maxkamadda sare ay tuurto natiijada doorashadii madaxtinimada ee 4 gobol oo ka tirsan Mareykanka oo ku guuleystay Joe Biden. go'aan kooban oo ka soo baxay maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in gobolka Texas uusan sharci u lahayn inuu dacwad ka keeno kiis ka dhana gobolada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa qaadi ka 9 garsoore oo 6 ka mid ay muxaafid yihiin. 3 ka mid ah waxaa soo magacaabay Trump, midkoodna kama aanu hadlin dacwadan. go'aankan ayaa dhabarjab ku ah rajadii madaxweynaha Mareykanku xilka ka sii dhamaanaya ka lahaa in maxkamadda sare ay ku diido natiijada doorashada ee uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. maalinta Isniinta ah ayay kulmi doonaan xubnaha ergooyin kale codbixinta ugu dambaysa ee doorashada madaxweynaha Mareykanka, kuwaasi oo loo yaqaano Electoral College, iyagoo codkooda si rasmi ah u dhiiban doona. isla arrimaha Mareykanka ayaynu ku jirnaayay. saraakiisha caafimaadka ee dowladda Mareykanka ayaa ansixiyay tallaalka looga hortagayo cudurka COVID-19. tallaabadan oo wadada u xaaraysa in la bilaabo tallaalka la siinayo shacabka Mareykanka. hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo FDA ayaa xalay ku dhawaaqday in tallaalka ay si xeelad degdeg ah u ogolaatay in loo isticmaalo, waxaana hadda bilaabmaya
daabulista dawada tallaalkan oo ay samayntiisa iska kaashadeen shirkadaha dawada farsameeya ee kalaha Pfizer oo Mareykanka ah iyo shirkadda Biotech oo laga leeyahay waddanka Jarmalka. Tallaalka ayaa ku soo beegmaya xilli ay aad u sii korayaan kiisaska dadka Mareykanka ugu dhimanaya cudurka COVID-19. Celcelis ahaan hadda waxaa maalintiiba Mareykanka ugu dhinta xanuunkan 3,000 oo ruux. dhinaca kale warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramay in madaxa shaqaalaha aqalka cad Mark Meadows uu jimcihii shalay ku cadaadiyay madaxda FDA Stephen Hahn in uu si degdeg ah u ansixiyo adeegsiga tallaalka Pfizer haddii kalena uu shaqadiisa weyn doono. hase yeeshee war qoraala uu shalay soo saaray Hahn ayaa waxa uu ku beeniyay in madaxa shaqaalaha aqalka cad uu ugu hanjabay inuu xilkiisa weynayo. ugu dambeyntiina tan iyo markii isbeddelku uu ka dhacay waddanka Ethiopia waxa magaalada Jigjiga ka socda maalgashi ay sameynayaan Soomaali intooda badan ka timid qurbaha. dowladda deegaanka Soomaalida ayaa isku dayaysa inay soo jiidato maalqabeennada Soomaalida ah si ay u maalgashtaan dhulka Soomaalida Ethiopia. wariyaha iyaga Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga. Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa laga dareemayaa isbedel dhanka maalgashiga ah oo ay qurba joog badan oo wadanka dib ugu soo laabteen si ay deegaankan oo fursado badan oo ganacsi ka banaayeen ay uga faa'iideystaan taasoo ay dadka deegaanka iyo dadka maalgashatada ama markii hore cabsi ka qabeen. waxaan ku jiraa maalgashadayaasha wadanka imika yimi muddadan 2 sano iyo dhowrka bilood ah ee isbedelku ka dhacay. saad ogtiin wadankeenu muddo aad u dheer baa wuxuu ahaa wax la oran karo aag dagaal oo dadka aan hantida haysta ama dadka raasmaalka haysta aan ku soo dhiiran jirin. laakiin isbedelkii wadanka ka dhacay 2018 wuxuu suurto geliyay in dad badan oo hantiilayaal ah oo Soomaaliyeed in ay ku soo dhiiradaan oo ay hantidooda wadanka ku aaminaan. Ali Bedel Maxamed oo wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna VOA-da u sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee shacabka deegaanku ka heleen isbedeladii dhacay. 2 sano u dambeysay ama 3 sano u dambeysay aan dhaho oo inta badan xoog la saaray adeegyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka Soomaalida. waxyaabaha laga qabtay ugu muhiimsan waxaa kamid ah wadooyin aan inta kor deegaanka laga dhisi jiray hadda ka socda oo runtii aad u tiro badan una tayo badan ilaa 2,200 kilomitir oo tarmac road ama wixii la dhaho laamida ayaa deegaankeena meelo kala duwan gobollo kala duwan ka socda. waxaa jira inuu wadooyin la dhaho wadooyinka isku xidha maaragtay rural roadka maaragtay ama tuulooyinka isku xidha iyaguna grade-ka ka yar hooseeyo aad badan baa ka socda. wixii ka dambeeyay waqtiyadii ay isbedeladu ka dhaceen guud ahaan dalka Ethiopia iyo gaar ahaanba deegaanka Soomaalida ayaa waxaa hadda dadka deegaanka u arkaan in la gaaray waqti uu qof kasta oo Soomaali ah ku fikirayo inuu deegaankan ganacsi ka samaysto. maanta magaalada Jigjiga isbedelkii kadib waxaa ka soconaya dhismayaal tiro badan. dhismayaasha tirada badan ee magaalada Jigjiga ka socda waxay muujinaysaa sida waxa weeyaan magaalada Jigjiga waa ummadda Soomaaliyeed oo baad ugu timaada waa hooyadii Soomaalida weeyaan. marka haddii la maalgashado oo ganacsigeeda la furfuro oo maalgeliyaasha caalamiga loogu yeero oo kuwa Soomaalida loogu yeero waxaan aaminsanahay Jigjiga inay noqon lahayd Dubayda Geeska Afrika. dhanka kale wasaaradda maalgashiga iyo qurba joogta dowlad deegaanka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay garab istaaga qof kasta oo doonaya in uu dalka maalgashado. inta isbedelka kadib waxaan ku dadaalaynay inaan sameeyno oo darisno fursadaha deegaankeena ka jira ee la maalgashan karo. marka waan isla sugaynay kolba qayb baan sameeynay 20 30 20 marka hadda 95 yaa diyaar noo ah. wixii kale sameyn doono gadaal baan ka sameynaynaa laakiin inta waxaan doonaynaa hadda inaan soo dhaweyno oo soo bandhigno. marka waxaan ku soo bandhigaynaa inaan sameyno targeted promotion dadka aan isleenahay hanti bay haystaan oo ay maal gashan karaan inaan horta casuuno. laakiin waxaan ugu talagalnay dadka Soomaalida ah ee deegaanka ka soo jeeda ee qurba joogta leh inay fursadan ka faa'iideystaan. si kastaba haatee tan iyo intii ay isbedeladu ka dhaceen guud ahaan dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida ayaa waxaa magaalada Jigjiga oo caasimad u ah deegaanka Soomaalida laga dareemayaa kobac dhinaca dhaqaalaha
magaalada waddooyinkeeda kala duwan markii aad socoto waxaad ku arkaysaa dhismayaal fara badan oo qabya islamarkaasina uu dhismuhu ku socdo dad fara badan oo dibadaha qurbaha ka soo laabtay ayaa deegaanka dib ugu soo laabtay islamarkaasina maalgashaday cabdiweli cabdi maxamed VOA jigjiga haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska goordhoweed waxaa soo gabagababay kulan aad u xiiso badan oo iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee Aston Villa iyo Wolves labadan kooxood ayaa soo bandhigay kubad isu dheelitiran oo weerar iyo weerar celis ahaa waxaana ciyaartan daqiiqadihii ugu dambeeyey la isla gaaray iyadoo wax goola aan la kala dhalinin ciyaaryahanka lagu magacaabo Anwar Al-Ghazi ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey oo waliba 5 daqiiqo oo dheeraad markii lagu daray waxa uu kooxdiisa rigoore loo dhigay ku hubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Wolves Aston Villa 3 dhibcood ayay ka soo qaadatay guriga kooxda kubadda cagta ee Wolves laakiin waxaa xusid mudan in ciyaartan calaamada guduudan la siiyay laba ciyaaryahan waxaa lagu hormariyay ciyaaryahan Douglas Luiz oo ciyaarta oo daqiiqada dhowrihii ay ka dhiman yihiin calaamada guduudan la siiyay laakiin markii ciyaartu sii dhamaanaysay oo waxba aanay ka harsaneen ayaa ciyaaryahan Joe Moutinho isna calaamada guduudan la siiyay labadan xidig oo kala ciyaarayay labada kooxood ee Aston Villa iyo Wolves xalayna waxaa goor dambe kulan xiiso badan iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo West Ham United labadan kooxood ayaa waxa ay ku kulmeen guriga kooxda kubadda cagta ee Leeds waxaana Leeds oo gool ka hormartay dusha loo saaray laba gool oo kale sidaasina kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay ku soo gashay kaalinta shanaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska waddanka Talyaanigana waxaa looga baroor diiqayaa geeridii ku timid ciyaaryahan Paolo Rossi oo maanta waddankaasi lagu aasay ciyaaryahan Paolo Rossi oo toddobaadkan geeriyooday ayaa waxa uu kamid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara xulka qaranka ee waddanka Talyaaniga waxaa lagu xusuustaa koobkii kubadda cagta adduunka ee sanadkii 1982 lagu qabtay waddanka Spain kaasi uu suura geliyay xulkiisu inay koobkaasi ku guuleystaan ciyaaryahanku waxa uu tartankaasi dhaliyay 6 gool isagoo oo ku guuleystay kobaha dahabka isla markaasina waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka ciyaaryahan Paolo Rossi ayaa si gaar dunidu waxay ugu xusuusataa guuldaradii uu dusha u saaray xulka qaranka ee waddanka Brazil oo iyaga sanadka loo saadaalinayay koobka inay ku guuleysanayaan xidigo caan ahna ku hubaysna ciyaaryahan Paolo Rossi ayaa kulankaasi oo Talyaanigu ay 3 gool iyo 2 ku badiyeen waxa uu dhaliyay gabi ahaanba 3 gool ee Talyaanigu ay ku guuleysteen waddanka Talyaaniga ayaa gabi ahaanba geeridiisa looga baroor diiqay iyadoo maantana garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Vicenza la keenay meedkiisa isla markaasina xidigo kamida kuwii uu la ciyaari jiray ay garoonka joogeen sidoo kale ciyaaryahanku waxa uu soo saftay kooxihii kubadda cagta ee AC Milan iyo Juventus oo waliba kooxdaasi caan ku ahaa muddo badan oo ciyaaray sidoo kale kooxda Vicenza ayuu ciyaarihiisa ka soo bilaabay Paolo Rossi waxa uu kamid yahay xidigihii kubadda cagta ee dunidu sida weyn ay u yaqaaneen waa tahay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabaynayaa gabi ahaanba barnaamijkii qubanaha maanta oo idinka imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inta aynu mar kale barnaamijkan la mid dib ugu kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabahda qubanaha wadile sida iyo nabad gelyo